nabad iyo naruuro naacawda nabadda dushiina ha la yeelo waxaynu joognaa xilli iyo zaman adag taas darteed ayaa door bidnay inaan idiin soo gudbinno muuqaallo ka hadlayo dhacdooyinka dhabta ah ee maalin kasta nolosheenna iyo xilliga aan ku jirna nagu dhacaya waxaana idiin soo jeedin doona anigoo ah Zayla Cabdi iyo walaalkii Caamir Cabdi. هذه الدنيا غريبة كل ما فيها بكاء انت لاقينا بكينا وانت فارقنا بكاء إن عطيناها وفانا مدت ايديها بجفا وانت حملنا عناها وجهتنا بالفداء كل ما وجه ابتسم لي سكت ابواب الهنا وكل ما waxaynu ku jirnaa xilli ay adag tahay in la rumaysto qof walba uu sheego waxa uu doono waxaynu ku jirnaa xilli ay dadka badi aysan kala garanaynin xuquuqdooda iyo mid ay leeyihiin waxaynu ku jirnaa zaman ay yaraatay kan wax oofinaya waa waqti ay dhaqaatiirtu ku cayaarayaan arwaaxi sharafta lahayd ayna ka lacagaysteen waxaynu ku jirnaa xilli ay masaakiintii fuqarada ahayd ay beeranayaan beer haddana ay beertaasi guranayaan kuwa hodanka ah waxaynu ku jirnaa xilli ay dadku duugeen diintoodii oo ay qaadanayaan wixii hawada u qurxiso waxaynu ku jirnaa xilli lagu tuhumayo kii la dulminayay inuu yahay midka wax dulminaya kan wax dulmiyana uu seexanayo isagoo aamin qaba waxaynu ku jirnaa xilli laga cararayo ubaxyadii qurxoonaa oo la waraabinayo qodxaanta dhibta badan waxa aynu ku jirnaa xilli ay adag tahay in la fahmo macnaha badan ee ku duugan dhoola-cadaynta waa xilli jacaylka laga raadiyey maslaxa gooni ah oon balladanaynin qiimaha uu leeyahay jacayl naga raali noqda dadka la dhaawacayow qalbiyadiinnu ma mutaystaan in saas la yeelo waxaynu joognaa xilli aynu aad uga cabsanayno noloshiisa waa xilli aynu aad uga xanuunsanayno iyada oo jirin da'weynin dhankeenna ah caalamkan waxa uu iga dhigay inaan isweydiiyo horta yaa wanaagsan inaad noolaato keligaa ama inaad iska dhimato adiga oo wanaagsan kee labadooda qurxoon ay mar kasta nafteedii i weydiisaa dhab ahaantii saaxiibadeeyow waxaynu joognaa zaman la yaabkiisa leh waa zaman haddii aanin tahay oo waxtar leh waxaad dhammaantood arki doontaa ayagoo cadow kuga ah waxaan joognaa xilli aan guulaysanayno oo aanan naloo tahniyadaynayn waa xilli aan murugoonayn oo aan nalala qaybsanaynin waa xilli aan aad u ooynayno haddana aan la'nahay wax inaga tira ilmadaas adduunku waa daar imtixaan waxaynu joognaa wakhti ay dadku sugayaan kan muxtarinka ah ilaa uu ka gafo ilaa laga dhaho kaasi ixtiraam shaqo kuma leh kuwa wanaagsan waxna ma dhibaan laakiin naftooda ayay dhibaan laakiin ma is oga lil'asaf waxaan noolnahay wakhti ay dadku hadday kaa maqlaan khayr ay qarinayaan haddii ay gaf kaa arkaanna ay buunbuuninayaan oo ay wareejinayaan daafaha dunida oo dhan waxaynu joognaa wakhti haddii dhagax la dhihi lahaa dhagaxuu noqo insaan uu dhihi lahaa ma noqon karee idaaya maxaa yeelay maahi mid qalbi adag sida insaanka oo kale waxaan joognaa xilli aan ku caasinayno hooyooyinkeen oo aan u baari samaynayno xaasaskeenna wakhtiga aan joogno awgiis ayaa nolosheenna ka dhigay in aan si ku talagal aan uga talagalno wax walba oo nagu imaan karaa laakiin waxaan noqonnay kuwo noloshooda saas ay wada noqotay waa xilli aan rajaynayno jeclaanayna inaan daawanno telefishinka annagoo doonaynin inaan aragno xanuunno iyo murugo dareemiddooda waa halaag iyo hoog socda dunidan waa calal xumo zamannadan dambe